غزوة ذات الرقاع مركي أصحابته أي كسوا لامين وقت الظهر قيد هاد معان بين نبي قول دافين يكون قيدك لي راد سدين مرقابو النبي قول سيفتي سوق هذي قيدك أيو صدي مرقاسو النبي قول قيدك هو صيحدي يانا ضبا صعدا من مشركة وأعرابية غورث بن حارس لديه جري أيا ضبا صعدا reerkii sibaa la soo dhameeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi ciidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos urda keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaaddu waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi maynkaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war kama hayan qisadda dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiis ku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina hada اخترد علي سيفي وأنا نائم فاستيقظته وفي يده سلتا فقال لي ألا تخافني فقلت لا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله 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 فسقط السيف من يده قصة ميشا كد علي أصحابته ما يجوغن لكن نبي قاوغو ورمايا محو نبي قاوغو جدا قصة قاوغو ورمايا توكل كبريا توكل اعتماد على الله مخلوقه دن سدو دن يهي لا يتحرك إلا بإرادته ولا يسكن إلا بإرادته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله